السلام عليكم. باي gobolka baay wuxuu ka mid yahay gobolada Soomaaliya wuxuuna ku yaalaa bartamaha koonfurta Soomaaliya. Gobolka baay wuxuu xuduud la leeyahay gobolada kale ah Bakool, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Magaalada madaxda gobolka baay waa Baydhabo. waxay magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya ee Muqdisho u jirtaa 256 kiiloomitir oo ay kaga aadan tahay dhinaca waqooyi galbeed. Magaalada Baydhabo waxay horay xarun ku-meel gaar ah u ahayd dowladdii ku-meel gaarka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Gobolka baay wuxuu ka mid yahay gobolada wax soo saarka beeraha aadka ugu fiican. waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah digirta, masagada, galeyda, looska, sisinta, kabsar caleenta, begelka, canabka, yaanyada iyo wixii lamid ah. Gobolka baay waxaa sidoo kale uu caan ku yahay iibka xoolaha nool oo loo iibgeeyo gobolada kale ee dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo kale gobolka baay ayaa kaalmaha hore kaga jira gobolada ugu raqiisan caanaha, taas oo ka dhigaysa gobolka in uu yahay meel aad barwaaqo u ah oo aad ka heli karto wax walba aad u baahan tahay. Gobolka baay waxaa kale uu caan ku yahay barashada diinta Islaamka oo udub dhaxaad u ah dalkeena Soomaaliya. gaar ahaan waxyaabaha aadka lagu barto waxaa ka mid ah xifdinta Quraanka Kariimka iyo axkaamta fiqiga. sidoo kale gobolka baay inkastoo uusan lahayn bad iyo webi toona, haddana waa magaalo goob istiraatiiji ah ku taala, waxaana ku dhaqan gobolka ganacsato aad u firfircoon aad u yaqaana ganacsiga. dhaqaalaha gobolka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay beeraha iyo xoolaha, maadaama gobolka uu qani ku yahay dhul beereed aad u baaxad weyn. gobolkan ayaa ah gobol Allah ku manaystay ilbiyood aan marna istaagin. waxaa lagu magacaabay ishaasi isha Baydhabo. sidoo kale waxay xarun u tahay ganacsato waaweyn kuwaasi oo ku leh xarumo ganacsi oo waaweyn magaalooyinka ay ka kooban tahay gobolka baay. sidoo kale gobolka baay wuxuu ka kooban yahay 5 degmo oo kala ah Baydhabo, Buur-Hakaba, Diinsoor, Qasax Dheere iyo Bardaale.